haweeney ka mid ah maxaabiistii Israa'iil oo la sii daayay oo xog badan bannaanka keentay. Sidoo kale maxaa ka jira inay sheegtay inuu nool yahay Abaa Cubeyda iyo waxyaabihii ay kula kulantay xabsiga. Sir badan oo gilgishay Israa'iil oo dhan iyo caalamka ayay bannaanka keentay, waxyaabihii ay ku aragtay xabsiga, qaabkii loola dhaqmay, iyo sidoo kale xogo been ah oo ay sheegeen Israa'iil oo iyadu ay bannaanka keentay. Kanaalka 13aad ee Israa'iil ayaana baahiyay muuqaalkan isagoo wareysi la yeeshay haweeneydan. Haddaba sidee wax u dhaceen? Maxbuusad Israa'iili ah kuwii laga sii daayay xabsiga mid ka mid ah ayaa xog badan ka shiftay, siro badanna bannaanka keentay. Sirahaasi waxay ruuxeen nidaamka gumeystaha Israa'iil. Maxbuusaddu waxay ka hadashay wixii ay soo martay xabsiyada Al-Qassam, iyadoo xaqiijisay in wax dhibaato ah haba yaraatee aan loo geysan, isla markaana ku tilmaamtay in la dhaqankoodu uu ahaa mid gebi ahaanba aysan filanayn. Waxa ay intaas ku dartay in wixii ay indhaheeda ku aragtay uu bedelay sawirkii ay rumaysnayd sanado badan ka hor. Waxa ay tiri, waxaan arkay dad ka duwan gebi ahaanba wixii naloo sheegi jiray. Waxaana loola dhaqmay si bani'aadamnimo leh xilli diyaaradaheenu ay duqeynayeen Gaza. Hadalladeedu waxay argagax ku noqdeen bulshada Israa'iil, waxayna dib u kicisay dood ku saabsan xaqiiqada ka dambeysa darbiyada Gaza. Weligay isma aanan dhihin maxbuus ayaad noqonaysaa. Maskaxda waxaan ku haystay in haddii la i qabto ay i dili doonaan, ayay tiri. Waxaan filanayay inaan wajihi doono jirdil iyo cadaadis oo aanan weligay sidii hore ku noqon doonin. Laakiin waxa ay indhahaygu ku arkeen gudaha xabsiga waxay iga bedeleen waxyaabo badan, waxayna bedeleen sidii aan u arkay adduunka. Maalmihii ugu horreeyay markii la i qabtay, cabsi weyn ayaa igu jirtay. Dhawaq kasta iyo dhaqaaq kasta waxa uu iga yaabin jiray. Xitaa dadka ay fiirinaya waan ka cabsanayay. Laakiin markii aan waqti yar la joogay, waxaan bilaabay inaan ogaado inaysan sidii la ii sheegay ahayn. Waxay noola hadli jireen si degan, ma qaylin jirin, mana dhibaateyn jirin maxaabiista. Cuntada iyo biyaha marka hore iyagaa na siin jiray, kadibna iyaga ayaa qaadan jiray wixii haray oo cuni jiray. Habeenkii ugu horreeyay hurda ima qaban. Waxaan fariistay qolka geeskiisa, cabsi ayaana dareemayay aniga oo daawanaya waxa ay sameynayaan. Markaas ayaa mid ka mid ah ii soo dhawaaday, waxa uuna dhinacayga dhiga buste, wuxuuna igu yiri af Carabi isaga oo ku hadlaya isku duub, hawadu way qabowdahay. Inkastoo aan erayada fahmin, haddana waxaan dareemayay in wax dhibaato ah uusan igu talagelin. Maalmuhu way sii socdeen. Maalin kasta 3 jeer ayaa cunto naloo keenayay. Cuntada ma ahayn mid nagu filan oo macaan, laakiin waxay ahayd mid nadiif ah, si sharaf leh ayaa naloo siin jiray. Markaste wayna weydiin jireen haddii aan wax gaar ah u baahano. Maalin maalmaha ka mid ah, haweeney ka tirsan maxaabiista oo aan la joogay ayaa xanuunsatay. Waxay u keeneen daawo, kadibna waxay nala joogeen ilaa ay caafimaad dareentay. Anigu ma rumaysan karin waxaan indhahayga ku arkay. La yaab ayay igu noqotay, waayo kuwani ma ahayn sidii naloo sheegay iyo wixii nalagu soo abaabiyay ee nalagu sheegi jiray in Falastiiniyiintu ay yihiin. Gebi ahaanba way ka doonaayeen. Maalin kale waxay ii ogolaadeen inaan warqad u qoro qoyskayga. Waxay yiraahdeen, marka xaaladdu degto waan diraynaa warqadaada. Waxaan gacantayda ku qoray aniga oo ilmeynaya, laakiin ilmadu ma ahayn kaliya cabsi ee waxay ahaayeen yaab, waayo la ilama dhaqmin sidii aan filayay. Way xasuustaan qoyskaygu. Fariintaydu way soo gaartay. Ma aqaan qaabkay u soo gaarsiiyeen, wayna ku farxeen markii ay ogaadeen inaan noolahay. Waxaan maqli jiray codadka duqeynta ka socda bannaanka. Wejiyadoodu way isbedeli jireen mar kasta. Si kastaba ha ahaatee, ma aysan noo muujin jirin wax dhibaato ah. Waxay ahaayeen kuwo aamusan. Mid ka mid ah ayaa mar igu yiri, sidaan waxaan u noolnahay maalin kaste, laakiin dadka shacabka ah anagu ma nacbin. Waxaan necebnahay ee aan la dagaalayno waa kuwa hubeysan ee duulaanka nagu ah oo doonaya inay qabsadaan dhulkeena. Ereyadaasi raad weyn ayay ugu reebeen, gaar ahaan maskaxdayda. Waxa ugu yaabka badnaa waxay ahayd xilligii afurka Ramadaanka. Waxaan maqli jiray codka aadaanka salaada. Dhammaantood shaqada way joojin jireen, way wada fariisan jireen, si siman ayay u qaybsan jireen cuntada. Kadib mid ayaa noo keeni jiray timir iyo biyo, wuxuuna na dhihi jiray, haddii aad rabtaan waad cuni kartaan. Qofna wax naguma qasbi jirin. Waxay ahayd waqtiyo xasiloon oo aan marnaba ilaawi karin. Markii maalmo iyo bilo gudbeen, waxaan bilaabay inaan si tartiib ah ula hadlo. Waxay i weydiin jireen qoyskayga iyo carruurtayda. Mararka qaar qof ayaa ii turjumi jiray si aan u fahmo. Waxaan arkay in iyaguna ay yihiin dad caadi ah sida annagoo kale. Iyaguna way baqayeen oo way gaajeysnaayeen, waxna way sugayeen. Annaga ah maxaabiista waxaan sugaynay waxaana loo qadaray. Iyaguna waxay sugayeen wax kale, sugitaan, nabad iyo xasilooni.
Maalin waxaan maqlay laba dhalinyaro ah oo wada hadlayay. Midkood wuxuu yidhi, hooyaday way sugaysaa. Ereygaasi wuxuu si qoto dheer iigu dhacay qalbigayga. Waxaan markaasi fahmay in dhammaanteen aan wadaagno hal shay oo aasaasi ah. Dhammaanteen waxaan rabnaa inaan u laabanno qoysaskeena iyo kuwa aan jecelnahay. Waxay noo ogolaan jireen inaan cibaadaysano kuna soconno gudaha muddo kooban, iyagoo na waardiyeynaya, laakiin aan na aflagaadeynayn. Hal qof oo gacantiisa i taabatay ama i gaartay haba yaraatee ma jirin. Canaan iyo qaylo warkood baa iska daa. Xitaa marka xaaladda bannaanku ay kacsaneyd, waxay isku dayayeen inay noo ilaaliyaan si ammaan ah. Toddobaadyo iyo bilo ayaa igu dhaafay meel aanan weligay qiyaasi karin. Ma ahayn meel raaxo leh, laakiin sidoo kale ma ahayn meel ciqaabtii iyo cadaabkii aan ka cabsanayay aan kala kulmay. Waxaa halkaasi jiray ixtiraam, inkastoo ay jireen dagaal iyo nacayb bannaanka ka socday. Maalintii ugu dambeysay ka hor inta aan lagu dhawaaqin isdhaafsiga maxaabiista, mid ayaa noo yimid. Wuxuu nagu wargeliyay inaan dhowaan guryahayaga ku noqon doono. Ma aanan rumaysan karin. Habeenkaas hurdo ima qaban. Waxaan ka fikirayay wax walba oo dhacay, wejiyadii aan arkay, iyo waayo aragnimada yaryar ee sawirkayga beddelay. Markii aan bannaanka u soo baxay oo la ii dhiibay, waxaan u jeestay gadaal. Waxaan arkayay wejiyo aan garanayay, wejiyo aan ka arkin nacayb. Madaxa ayaan kor u qaaday oo waxaan is iri, kuwaan ma ahayn sidii naloo sheegay. Maanta markii aan noloshayda dib ugu soo noqday, ma awoodo inaan iloobo wixii aan arkayay. Habeenkii mararka qaarkood waxaan toosaa aniga oo xasuusanaya bustihii la ii duldhigay habeenkaygii ugu horreeyay. Waxaan maqli jiray aadaankii fiidkii. Waxaan xasuustaa wejiyadii na fiirinayay si aan nacayb lahayn. Waxaan bartay hal shay oo muhiim ah: sawirka naloo sawiro ee dadka kale mar walba sax ma ahan. Dad baa jira meel walba, xitaa meel aanan filanayn in bani'aadamnimo aan ka heli doono. Waxaa laga yaabaa in dad badani ay rumaysan waayaan waxa aan sheegayo, laakiin waxa aan ka hadlayaa waa wixii aan soo arkay ee aan maqlay. Waxaan arkay naxariis. Waxaan arkay dad bixiyay wax yar oo ay haysteen iyagoo wax la'aan ku jiray. Waxaan arkay in dagaalladu ay naceebna bareen, laakiin darbiyada maxbuusnimada dhexdeeda waxaa jira bani'aadamnimo aan la iska indhatiri karin. Maalmihii ka dambeeyay markii aan soo baxay, xasuusahaasi way i daba joogeen. Inkastoo magaalada qayladoodu badan tahay, haddana gudahaygu waa kuwo aamusan. Qayb iga mid ah ayaa halkaasi ku haray, meel fog oo aragtidayda wax badan ka beddeshay. Mar kasta oo aan fiiriyo indhaha dadka kale, waxaan soo xasuustaa wejiyadii degganaa ee na ilaalin jiray. Ma ahayn indho nacayb leh, laakiin waxay ahaayeen indho taxaddar badan laakiin murugaysan. Waxaan arkay inay yihiin dad dagaal ka daalay, sida annaguba aan uga daalno dagaalka. Waxaan bilaabay inaan dib u eego wax walba oo aan bartay, wax walba oo aan maqlay noloshayda. Waxaan ogaaday in wax walba oo naloo sheegi jiray ay ahaayeen waxba kama jiraan iyo been. Waxaa jira farqi weyn oo u dhexeeya sawirka wararka aan daawanno iyo dadka dhabta ah ee ku nool Gaza. Habeenkii markii aan xabsiga ka soo baxay oo noloshayda aan dib ugu laabtay, waxaan ku riyooday inaan mar kale ku noqday halkii aan maxbuuska ku ahaa. Waxaan is arkay aniga oo fadhiya isla geeskii aan markii hore fadhiyay, balse markaan cabsi ima haynin ee waxaan maqlayay codkoodii Carabiga ay lahaayeen, qosol yar oo hoos ah, iyo carafta rootiga kululaa ee subax walba ay dubi jireen. Waxaan arkayay sida ay cuntadoodu u qaybsanayeen oo annagana ay qayb naga siinayeen, xitaa inta aysan iyagu cunin. Maanta markii aan ka sheekeynayo waayo aragnimadayda, ma doonayo inaan wax cudurdaar ah sameeyo, balse keliya inaan idhaahdo nolosha sidii hore uma noqon. Wax walba waxay noqdeen kuwo kale. Wejiyada dadka way isbeddeleen. Xitaa gurigaygii aan jeclaa ayaa si kale ila noqday. Laakiin ma ahan ayaga ee aniga ayaa isbeddelay. Mar kasta oo aan qoyskayga ag fadhiisto, waxa ay i weydiiyaan, sidee ahayd maalmahaas aad maxbuuska ahayd? Anigu hadal fiican kama helo. Waxaan idhaahdaa oo keliya, way ka duwaneed waxa aad u maleynaysaan. Kadibna waan aamusaa, sababtoo ah faahfaahintu ma fududa oo waxay iiga tageen raadad aanan erayo ku soo koobi karin. Haweeneydan waxa ay sheegtay xogo fara badan oo la yaab leh. Dhowrka xog ee ugu muhiimsan ee ay sheegtay waxay tahay in markii ugu horreysay ay soo baxday ay noqotay shaqsigii ugu horreeyay ee xaqiijiyay inuu nool yahay Abu Cubeyda. Waxa ay tiri, xabsiga intii aan ku jirnay waxaan la soconay dhaqdhaqaaq walba iyo wax walba oo dhacaya. Waxaan ogaanay in Abu Cubeyda uu soo gaaray dhaawac culus. Waa afhayeenkii Xamaas. Dhaawac culus oo weliba aad u daran.
laakiin weli uu nool yahay oo lagu dabiibayo gudaha Gaza. Waa markii ugu horreeyay uu barnaamijkan soo shaac baxo kadib markii ay Israa'iil sheegtay inay dishay Abu Cubeyda iyo qoyskiisii, laakiin ilaa iyo haatan Xamaas kama hadlin. Markii ugu horreysay ayay haweeneydan sheegtay in mid ka mid ah godadka ay ku jireen lagu dabiibayay, ayna xogtaasi ka heshay askartii iyada ilaalinayay. Sidoo kale waxa ay sheegtay iyada iyo maxbuus kale oo wareysi siiyey janaalka 13aad in maalin banaanbax socday lagu soo dhex qariyay maxaabiista. Banaanbaxaasina uu ahaa banaanbax maxaabiista looga bedelayay halkii ay joogeen kadib markii Israa'iil ay heshay godadkii lagu qarinayay. Waxay sheegtay maalintaas inay si toos u arkaysay ciidanka Israa'iil, balse aysan awoodin inay u sheegto in dadka meeshan maraya qaarkood ay yihiin maxaabiis, oo dadka iyada la socda qaarkood ay ahaayeen kuwo bistoolado ku hubeysan, laguna wargeliyay haddii tallaabo ay qaado in madaxa la bajin doono. Ugu dambeynna god kale loo wareejiyay. Gabadhan waxa ay sheegtay arrimo badan oo xasaasi ah, laakiin labada dhacdo ee dadka ka yaabiyay waxay tahay nolosha Abu Cubeyda iyo sidoo kale dhacdadan kale ee ah in maxaabiista lagu dhex qariyay. Waxaase kaloo yaab badneed in shacabka Israa'iil ay si aan qarsoodi lahayn ula wadaagtay in Gaza waxa ay ka aaminsan yihiin ama looga sheego ay tahay waxba kama jiraan oo been ay tahay. Ma ahan keliya iyada, ee waa dhowr maxbuus oo xitaa midkood uu yahay Amerikaan una la safnaa ciidamada Israa'iil. Dhammaantood waxa ay sheegeen in dadka reer Gaza ama Falastiin ay yihiin dad nabadeed, aadna loo wanaajiyay markii ay ahaayeen maxaabiista, laakiin iyagu marka ay gacanta ku dhigaan ay jirdil ba'an u geystaan. Dunida oo dhan ayaa la yaabtay waxyaabaha ay maxaabiistu ka sheegayaan wareysiyada iyo broadcast-yada. Muuqaaladeena xiga ayaan kusoo bandhigi doonaa wixii soo kordha iyo sidoo kale xaqiijinta nolosha Abu Cubeyda. Waana mahadsantahay.